aad iyo baan idin salaamaya. Ninkii gaadhiga isu dhigayay iyo wixiina kala qabsaday habeenada ka mid ah anigoo hortaagan meherad ku taagla magaalada Hargeysa, meel suuqa oo laga dukaamaysto. Kooxan wada soconay oo gudaha gashay ayaa anigu gudaha waan ku yar caajisay, marka telefoon baan la soo baxay meesha horteedu adigu oo aan albaabka hayn, laakiin in yar baan albaabka ka yar dulkay ayaan taagnaa. marka imika ma kala xasuustay inaan telefoonka ku hadlayo in telefoonku ii dhammaaday. sidaa wajahadeeda tooska ah ayaan eegayay ayaa bal amarka ilaahay indhahaygu waxay hayeen gaadhi Land Cruiser oo sii baxaya, waxa saaran nin odaya iyo xaaskiisii. gaadhigu markii ay sidaa u dhaqaaqeen ayaa markaa gaadhiga dib u baxaya gadaal nin baa soo socday. ninkaas wuxuu iska dhigay sidii qof telefoon ku hadlaya. wuu soo socday gaadhigu marka gaadhigu xoog uma soconayo, dee meeshan gaadhigu uu baxaye waxa ka dambaysa wada halbowle ah oo baabuurta maraan, marka gaadhi si feejignaani ku jirto uu baxaya. ninkii gaadhigii marka uu sidaa u soo gaadhay ayaa intuu turuska dambe isku dhiftay buu dib intuu istuuray buu qayliyey. marka intaas oo dhan waan arkaya, indhahaygu way hayaan gaadhiga baxaya, ninka isu dhigay istuuray iska dhigay qof telefoon ku hadlaya, waxaan oo dhan waan la socdaa. ilaahay amarkiisa ninkii meesha intaan kusoo dhaqaaqay ayaa ninka odayga wuu naxay, isagii xaaskiisa way naxeen, way khalkhaleen. bismillaah xisradeen masiiba dhacday oo dhib baad geysateen. waan kusoo dhaqaaqay, waan eegay anoo hadlayaan soo dhaqaaqay. waanu yimi ninkii baan ku yiri ninka waan arkay baan ku yiri ana isaga gaariga soo dhigay. may waxa weeyaan waxaan kan u qayliyo dhulku isla dhacay. maalmaha in yar ka hor ayaa waxa la sheegay xoog ah in aagan ilaa 2 kilomitir oo isku weyn meelahan inuu jiro ninka baabuurta isu dhiga. marka xogtaasaan hayay, marka xogtani ayaa dhiiri gelisay oo waxbaan isu geeyay. ninku wada arkaysa uu soo dhaqaaqay, gaadhiguna ku rabsocday, uu soo dhigay, uu istuuray. marka wixii baan xogtii baan isku ka xirantay. waan u tagay meesha waa lagu soo buuqay. marka waxaan ku yiri ninkan ana arkayay gaadhigu soo dhigay. waxa dhacday markii la soo buuqay ee la soo baxay meeshii la isugu yimi, ninkaan si cad ugu yiro ninka ana arkayay indhahan ku hayay gaadhiga wuu soo dhigay. ayuu ninkii odayga yar nafisay, naqas baa ka soo baxay. deedna waan isaga soo dhaqaaqay. deedna ninkii bay ka dambeeyay wuxuu ugu yiri telefoonkaaga qor, intaas wax dhacaan bee. waxaa ku qor telefoonkayga ma qortay. ayaa bal amarka ilaahay markii la soo buuqay nin boolisaa noo yimi. ninkii booliska baa ninkan yaanu iga tagin waxa uu geesay. markaasuu ku yiri maxaa ku gaaray saasoo kale dasiiro ku la hadlay. sheeg maxaa ku gaaray. maxaa gaaray uu nin istuuray buu ahaay. deedna way ku cadaatay wuxuu sheegtay buu garan waayay. waxaan kan anigu wajin sukuran maxaa ku gaaray. uu kala hadlay. markaa ninkii booliska ahaana aduu gaadhiga waa la fasaxay, iska tagay gaadhiga. meel ma ka bacdi inay kala duwan yihiin bal amarka ilaahay dareen ahaan dee dumarka rag way kala duwan yihiin. fariin baa ii soo dhacday ninkii odayga ahaa xitaa waad mahadsantahay, aniguna dan ilaahay bay iga ahayd. waxaan diidayay ninkaa dulmigu ku dhacayo, ninkaasi uu dembiga saaray ee uu ka dhigayo ninuu jiiray, hadhowna sheekada ay xumaanayso. waan iska tegay. maalmo kale bacdi fariin baa ii soo dhacday waa ninka odayga xaaskiisa. waad mahadsantahay, nin geesiya baa tahay, walba nin caynkanaa tahay. waasaan yaab qofkana muxuu ahaa tore. habeenkii farinta markaan sii aqriyay habeenkii arrinta noocaas ay dhacday. waxa weeyaan runtaad sheegtay, markhaatigaad furtay, ku mahadsan tahay, nin geesiya baa tahay, caynkana baa tahay. waa min sunna qofku waxa wanaagsan uu sameeyay looga mahad celiyo. hase yeeshee lillaahi bay iga ahayd, cidna weji kagamaan doonin. waayo waxaan goobjoog u ahaa anu arkayay gaadhigoo dhaqaaqaya, ninkoo kusoo dhaqaaqay soo dhigay. ninku markuu gaadhiga isu dhigay uu istuuray oo uu qayliyey ayaan indhahaygu arkay inaan goobjoog u ahaa. marka qaar waxa mudan waxaweyaan
feejignaantu waxa weeyaan iyo qofku inuu mararka qaar aan xaqada ka gaban waa waxa aad u qaaliyo qof isagoo naftiisa ka fikiraya oo ammaankiisa ka fikiraya aniga lafteeda markii haddii ninkan uu kooxu leeyahay wada shaqaystaan habeen aniga lafteeda waxbay soo gaari karayay hase yeeshee aniga lafteeda markii waa meesha waan ka tegey aniga tiimkan u socon markii waan baxna marka wuxuu mar u socdaa mararka qaar aad bay muhiim u tahay horta qofku inuu naftiisa iyo ammaankiisa ilaaliyo mar labaadkana wixii run ah ee xaqiiqo ah ee uu arkayo inaanu indhaha ka qarsan ee markhaatiya inuu caddeeyo say ka muhiimsan tahay qofku dee meel ammaan haddaanu ammaankiisa ugu baqanayo ama ay halisa ka soo gaarayso markaa naftiisa taaganta سيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.